see hadda lagu haya marka dadka la wadaag see hadda lagu haya xaaladaada waxa ma cuni kartaa miyaad ma tagaysaa ma qandhaa ku hayso wax daawa oo cunto ma jiraan kuwaan hadda la joogtid wax oo qandha jibi waa miyay ku siiyeen la wadaag walaalaha ay tali kuwaan dhakhtar maahane waxa waaye hadda meel aad jiifis maalintii waa ogtaa shaltara waxa waa iska soo buriyaa ma fahamtay waa la iska burinaa ها معناها قولك من فكرة فاهمينه يعني وصباح الساعة شلتك وكجري لكن داشك يا جوجي مبان قولك ما ساعة على كبع يا معناها هذه لا ساعة كدم ولا فكرتي إلا ما ساعة الجوجل هنا كنا قلت دي حتى أسكح عنو سنتها ما دي أسكو وجع سنتها قولك هنا كنا قلت ما ساعة الجوجل يعني ما أنت اللي لعب واحد وسنة يقولك هنا كلها ترى هي يعني ما أنا منقني سيدهم مبان ما أنت اللي روان. سؤال شاب ويدي وعيتها الصبح قبل ما يقص على الساعة لو ساعة دي لقى سعره ما يقص ساعة كنا قرتها ما ممكن أخوك تدخلك واحد كنا قناة بس أفتح على جيف هبينك كنا قناة ظهركم من قرت عصركم من قرت ما يا شرعي أساس وتلي مركا فرامت لقى بلا لو ساعة الصبح يعني 8 in the morning إلا يهبينك 11 ساعة ولا ساعة وقت العشاء هاي oo chief loogu talagalay inta u dhaxayso banaanka joogsiina barxada joogsiin laba sac iyo hoolaha waayna hoolaha qabanay meelaha lagu hawsho ogaa laakiin waxaan ka wadaa forum subaxii aan ku dhahay laba saac ilaa waqtiga chiefka marka laga saaro waqtiga hoolaha la dirsanayo xagee joogtiin qof ma taagnaana waxa la joogaa fadhiga iyo meesha TV-ga iyo meelaha cuntada lagu cunay meel kale waxaa jirta xoogaa hool yar waayahay fadhigii waa ku daalay inaan seexdo oo iska nasto xoogaa iskala bixiyo ma dhici karto may xasbuna allah arrinta waa ogeyn haddaan maqlo yani dhiiga waxyaaba badan laga baarayo dhiig baa laga qaaday kaadi ma laga qaaday may x-ray raajo ma lagu saaray may saxaro ma laga qaaday may okay marka dhiig laga qaaday kaadi xataa lagama qaadan may kile waqti badan inuu geliyaa marbaan waa wax iska firiyo no problem ku soco allahu musta'an waa nasiib darro waay that itself is a negligence dadka wadamada wastiga yaqaano waa fahmi kartiin waxaan ka hadlayo that itself qof dhan oo xanuunsan oo Afrika ka yimid dhiig meelaha loo qaadi karaa dhiig maxaa laga baaraa cudurrada guud baa laga baari karaa laakiin x-ray waxaa la saaray wax weyn miya iyo in saxaro laga qaado kaadi laga qaado anyway kale maanta la balansan soo oo ku noqonaysaa الله المستعان وحبس عادي وايهي هذا مركب ما انت عذر دار ويديست waxay tiri waa xanuunsanahay meelaha fadhi kara sariirta liyo galaado iga yeelan tali ma sha Allah okay marka ma suurta gali kartaa inta weydiiso in macnaha maalin iyo laba maalin fasax ma ku sii karaan si aan meel banaanka lagu soo seexiyo oo aad ka soo nasato macnaha ciriirigan bal arintaas ma wareysan kartaa arinta ma soo wareysan kartaa si aan meel kale ku geeyno maalmana xanuunsan tahay ama taqtaacta special oo privacy oo lacag lagu geeyo ma suurta gali kartaa laba maalin saddex maalin fasax ina dhahda isiya ehelkayga aadaya camal ama familia aadaya fasaxaas ma weydiisan kartaa waa isdhaha okay weydiisa hadday yeelayaan waa laga wadayaa laba maalin saddex maalin saa u soo nasto meesha maadaama berri sabti iyo xad ay tahay labadaas beri weekendiga waxaa lagu leeyahay ehelkaan u tagaa leedahay dad baan u tagayaa iimaanaya leedahay ma fahanti waa mahadsan tahay Canadian boy moodku waa geli kartaa insha Allah haddii xataa xoogaa aadan dareemaynin waa mahadsan tahay waa macsalaameynayna waa iska bixi kartaa annaga dhamaysanayno walaalaha u fasaxaya mikrofoonka
gastiga qofkii rabo inuu soo fuula soo qabsado waxa aan noo sheegay ha noqdaan wax oo maaragtay productive wax macnaha constructive uma baahnin wax niyajab iyo bahdil ah haddii kale aniga nin naxamiihi nin fiicanna waa ahay nin xunna waa ahay haddaa xumaanta tustid meeshaan soo fuushid weliba ninkaas aadid hadda adaa iskeenay waa kula dhaca aniga weliba hadallada afkayga ka baxo sida macaanka uga baxo qaraara ka baxo دكتورة شيخ صالح مدك السلام عليكم والسلامة محمد هوي وأبو سلامة علينا وكحما وحيابها دعاي إلهي إنكيس لكن حالي جربيشان دولد كندا سان مو ملايين والله إنيو أنا meeshaan joogno waa Yurub marka ilmaha noocan oo kale oo ku dhacdo isla markii dawladda aan isfoor ka qaado oo systemka unuga meela la geeyaa sharcigiisa wixiisa wax walba waa loo soo saaraa soo marka waxaan la yaabanahay waxay tahay wallahi billahi wallahi been ku sheegay waa dhageysan jiray wiilka waa raadin jiray waxyaabaha dawladda Canada hadda ka dhacayso Canada la sheegay hadday saan tahay xaalan siinay la'aan ish dawladda Canada waa wadan weyn systemkeedana Afrikayba ka liidataa hadda arkay because cunug yar wadanka ku dhashay oo aan dhahaynin maaragtay Soomaaliya laga keenay soo meesha ku koray uu ku dhashay oo nationality-giisii ay soo saari la'yiin oo shelter ku hayaan oo systemkii horboodi lahaayo maaragtay caafimaadka geyn lahaa wax walba u qaban lahaa haddaba xaaladda saas tahay wow wallahi waxaan sheegay ma aqaan aadam mar horta uga niyad jabay because ana hadda meeshaan joogo waa Sweden magaalada Stockholm aan yiraahdaa way jiraan ilmo noocan oo kale lagu sameeyay oo markii cunugii uu intuu tago safaaradda la soo qaado meeshaan la keeno ilaahaygi maxamed abuurtan ku dhaartay diinta islaamka macaan dadka waday iyo dadka ku eerarsanaa xabsiya inta lagu guro balaayo ka raacdaa balaayo ilaa uu cunugii yiraahdo waa cafiyay dambi waxay iga galeen anaa cafiyay hal iska sii daayo wadankana kama shaqeysan karaan haddii ilaah ku rooyay dhibaato badan la gaarsiiyaa nacam waa in uu qofka qaladaadka u galay oo marka dambe uu ka fiirsadaa laakiin Canada oo isdhahayni way weyn tahay ogaa maaragtay luqadda Ingiriiska ku baasgalaysan yihiin way ka ilbaxsan yihiin adduunka haddii cunugii ku dhashay shalay familkan dhibaatada geysay oo gaartay oo laga arkayo adduunka oo dhan haddana ay saa ula dhaqmayaan wallahi waa arin wax kale ah ma fahanto waa arin aad u xanuun badan maxamed waxaa ilaah ugu baryayaa habeen iyo maalin ku soo duceeyaa ilaah iiga sareeyo maaragtay lacagaa loo aruurinayo first aniga waa ka qayb qaadana waana ku soo qorayaa insha Allah luuqa waan ku soo qoray waxaas la yaabana wallahi mar waxaan siraahdaa ticket inta goosatay fasax qaadatay ma tagtaa dawladdaas tol meel walba caayma kala maaragtay ma kala xiriirtaa dadka systemkooda I'm not understand what's wrong with them waxa ka qaldan waa fahmi la'ahay ilmo yar wadanka ku dhashay oo Afrika lagu soo dhibaateeyay oo cadeymeeda lahaayo oo maanta haday dib u sii raadiyaan ay heli karaan haddana aysan wax dawlad ama wax oo system u taagan cunugii hor ordaayo waxayna aysan jirin asaga ay ka rabaan inuu lawyer qabsado taas waa another level ma fahmi kari I'm so sorry habar wixii kugu dhacay waxa u maleynin maxamed oo kaliya inuu kugu dhacay Soomaalidu boqolkiiba 75 taasay u dhib badan yihiin annaga haddaan Soomaali nahay waa taqaanaa abuu lagagama sheekeynayo famil burbure problem ay iskaga soo koraan
dadka qaraabada ana qof ilaahay subxaanahu watacaala u naxariistay maahane waxaaba dhihi karaa waaba psychopath soomaalida duntooda waxay ka samaysan tahay psychopath because asaga ama habarir ha ahaato ama abti ha ahaado ama adeer ha ahaado asiga wuu rabaa cunugiisa inuu fiicnaado laakiin cunuga walaashiis inuu dhibaateeyo oo cunugiisa uu cunugan kale ka liito wayba ku raaxaystaan sababtaasna ma aqaan laakiin waxaan waa adduunyo aakhira ka dambaysa waana laga jaasaynayaa adduunkana looga jaasaynaya nafsiga sidii hore ma aha nafsiga eber waagii hore diidiina waday laakiin hadda haatafka wado qofkii qof bini aadana nooc kasta ahaada dembi ka galo ilaahay subxaanahu watacaala maalintiisu korkeena ama awlaadiisa la gelinaa ama caafimaadka laga qaadaa si kale oo unbu qofka bini aadamka u saameynaa ila ma aha cunugaas yarkaa dhibaatada gaarayso tani Afrika dhibaato kusoo gaartay wallaahi maalin iyo habeen waa iska ooya cunugaas markaa hadalkiisa maqlo ma aragta ma la soo koobi karo emotionaliisa markaa xasuusta xataa nacam anigaas kula hadlayo maanta qof weyn dadku qaarkood markay dhahaan